Assalaamu calaykum. Qofka bani'aadamka ma jiro wax kaga xun shalaytanka. Kelmadda caanka ah aynu mar walba maqalnaana waxay noqotay haddii uu waqtigu i soo laaban lahaa, waxaan samayn lahaa waxaas iyo waxaas. Laakiin waxaa hubaala inaanu marnaba waqtigu soo laabanayn. Xaqiiqaduna waxay tahay badanaa qaladada aynu samayno waqti hore waxa ay saameeyaan nolosheenna dambe. Haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa qodobo ay dadku inta badan ay ka murugoodaan markii ay waqti da'a gaadhaan. Waxaa suuragal ah inaad ka fogaato si aanad uga shallaytoon waqtiga dambe amaba aad uga faa'iidayso qof agtaada qiimo ku leh. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddaba haddii aynu ku bilowno qodobka koowaad, kaasoo ay dadku inta badan ay ka murugoodaan marka ay da' gaadhaan, waa fursadihii aanay ka faa'iidaysan. Marka aynu dhalinyaro nahay waxa inoo furan albaabo badan oo fursado ah, laakiin badankeennu waan ka tagnaa fursadahaas cabsi darteed, amaba caajisnimo, amaba xataa kibir darteed. Wiilka ama inanta jaamacad ka soo baxday ma rabaan shaqo aan ka ahayn mid xafiis, amaba waxa ay raadinayaan mansab sare. Taasina uma suurto gasho badanaa. Waxa suurtagal ahayd haddii ay hoos u eegi lahaayeen fursado badan oo hoos yaalla, inay heli lahaayeen waxa ay raadinayaan wax ka badan. Guusha oo dhanna waxaaba la yidhaahdaa waa laba shay oo kulma, waana fursadda iyo diyaargarowga. Haddaba haddii aad dayacdo fursado ku hor yaalla maanta, waxaa hubaala inaad ka murugoon doonto. Shayga labaadna waxa uu yahay inaad ka warwasho waxa ay dadka kale kaa aaminsan yihiin. Badankeennu waxaynu muhiimad siinaa sawirka ay dadka kale inaga haystaan. Ra'yiga dadka ha u aaminin si boqolkiiba boqola. Keliyaata waa bani'aadam cabbiraya ra'yigiisa. Nin odaya ayaa lagu yidhi, maxaad u malaynaysaa inay dadku kaa sheegayaan? Waxa uu yidhi, anigu waan dhimanayaa, ayaguna way dhiman doonaan. Keligay ayaa la xisaabin doonaa, keligoodna waa la xisaabin doonaa. Markaa maxaa iga galay waxay iga sheegayaan? Horena waa tii loo yidhi, rida annaasi ghaayatun laa tudrag. Sidaa awgeed, samee wixii aad u aragtay inay sax yihiin. Shayga saddexaadna waxa uu yahay inaad u oggolaato dadka kugu hareeraysan inay kuu dooraan noloshaada. Waxaa ka mid ah qaladada ugu waaweyn ee nolosheenna ka galno waa inaynu gacanta u gelino nolosheenna dad inala mid ah si ay inoogu qaabeeyaan nolosha aynu ku noolaanayno. Waxay inoo doorayaan habu socodka nolosheenna, waxay inoo doorayaan waxa aynu baranayno, waxay sidoo kale inoo doorayaan waxa aynu qabanayno iyo sida aynu u qabanayno. Arrintaasina waa adiga oo ka tanaasulay badh ka mid a qofnimadaadii. Markii uu waqti ka soo wareegana waxaad ku hantaatici doontaa maxaan anigu noloshayda u maamuli waayey. Imakaba adigu mas-uul ka noqo naftaada. Shayga afraad ee dadku inta badan ay ka murugoodaan marka ay da' gaadhaanna waxa uu yahay sii joogitaanka shaqo qaldan. Markii aad yar tahay mas-uuliyadda ku saaranina waa ay yar tahay. Haddii aad ka shaqayso shaqo maamulkeedu uu xun yahay, amaba ra'yigaaga aan la dhegaysan, amaba aanad jeclayn, waa fududahay inaad ka tagtaa. Laakiin markii aad weynaato mas-uuliyadduna intii hore ka badato oo lagaa sugayo hoy iyo hu iyo quudba, iyagoo ay jiraan dhibaatooyinkaa shaqo, haddana inaynu ka tagnaa waa adag tahay. Laakiin mar waliba waa inaad doorato oo aad ka shaqayso meel aad raalli ku tahay. Shayga shanaadna waxa uu yahay dayaca caafimaadkaaga. Inaad yeelato balwad xun amaba aad ka warhayn weydo caafimaadkaaga waa mas-uuliyad aad dayacday. Ilaali caafimaadkaaga dhalinyarnimo, kana faa'iidayso. Waxaad u aayi doontaa markii aad weynaato. Qodobka lixaad ee inta badan aynu ka tiiraanyo ama aynu ka shallaytanaana waxa uu yahay samaysasho la'aanta saaxiib wanaagsan. Waynu ognahay inay samankan adag tahay in la helo saaxiib xaqiiqi ah, laakiin waxa kugu waajiba inaad juhdi ku bixiso oo aad raadiso saaxiib wanaagsan oo aad isku mabda' tihiin, isku meelna aad u socotaan. Saaxiibadaasoo kula wadaaga murugadaada iyo farxaddaadaba, kuuna noqda gidaar adag oo dhib iyo dheefba kula wadaaga. Halkaa haynoogu jooga barnaamijkeenna maantu. Wassalaamu calaykum.